Spain iyo kooxda Chelsea Cesc Fabregas ayaa go'aan ku gaaray inuu isaga tago Stamford Bridge isagoo durba wada hadal la bilaabay kooxdiisa sida ay warinayaan wararka ka imaanaya dalka Spain. heshiiska Sodonico jirkan kula joog Blues ayaa dhacay dhamaadka kala ciyaareedkan iyadoona beex horta lagu heli karo suuqa xagaaga. Fabregas ayaa hore u qarin uu doonay inuu sii joogo Chelsea balse kooxda ay u soo bandhigi weysay heshiis kordhin. Warsidaha Marca ayaa iminka warinaya inuu naadiga la bilaabo wada hadal uu kaga tagay waqtigan wax heshiis ah lama gaarin kooxda uu ku biiri lahaa markuu ka tagay kooxda reer London, laakiin Marca ayaa sheegaysa in ila wareejo ku dhow wada hadal Chelsea kaga tagayo ay sheegaan in bartilmaameedkiisa uu noqon doono mashruuc cusub oo Yurub ah. Monaco iyo Milan ayaa si xoog loo xiriiriyay laacib reer Spain, laakiin tababar Sarri ma doonayo inuu waayo adeega Fabregas. Waxaan doonayaa inaan kooxda sii joogo, ma garanayo go'aanka ma dambaysta ee Fabregas iyo midka kooxda ayuu yiri tababaraha Mauricio Sarri, laakiin aniga ahaan aad ay muhiim ugu tahay inuu sii joogo laacibkan. Haddii uu tagana waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan soo iibsano laacib kale, mana sahlana midda maxaa yeelay farsamo ahaan Fabregas waa ciyaaryahan aad u muhiim ah. Xidigan ayaa doorbiday intuu fadhin lahaa kursiga kaadkan isaga bax Chelsea halka hogaamiye Mauricio Sarri uu doonayo wiilkan Isbaanishka inuusan lumin waqtigan.